horey waxaynu soo sheegnay in dagaal kasta oo dhex mara waddanka Mareykanka iyo waddanka Ruushka uu yahay mid khatar ah oo adduunyada gaarsiin kara sidii qiyaamihii oo kale yacni kama dambaystii haddaba waddanka Mareykanka maadaama uu yahay waddan dimuqraadi oo dalkiisu ay yihiin dadka ku nool dad dimuqraatiga ah oo dimuqraadiyadda jecel isla markaana doorta madaxdooda kay doonana iska diida isla markaana ay yihiin dadka waddanka ku nool la oran karo waa dad nabadgelyada jecel iyada inay farxad iskaga noolaadaan iyo dagaal la'aan iskaga noolaadaan waa maxay sababta ku kalifaysa Mareykanku inuu u bareero khatarta intaa leeg oo uu waddanka Ruushka ka hortago oo uu daandaansi fara badan sameeyo oo uu ka fikiri waayo bal hadda sidii looga baaqsan lahaa dagaal saddexaad inuu adduunka ka dhaco ama inuu dagaal dhex maro waddanka Ruushka iyo waddanka Mareykanka sababtaasaynu maanta eegaynaa barnaamijkeena ku eegaynaa haddii Ilaahay yiraahdo intaynaan sababta aynaan isla baarbaarin aynaan isla gurfayn isla qaada dhigin waxaan jeclaan lahaa inaad fadlan subscribe saartaan like-na saartaan gambaleelkana furataan oo qodobka koobaad Mareykanku wuxuu aaminsan yahay inuu hayo shaqo muhiim ah oo aad u weyn oo muqadas ah oo ay tahay in uu dhammaystiro Mareykanku waxa uu eriyadaa saddexda gool oo kala ah 1 fidinta dimuqraadiyadda ku dhisan liberaalka dimuqraasigu waa laba waa liberal democracy iyo illiberal democracy dimuqraadiyadda xambaarsan xorriyadda iyo dimuqraadiyadda aan xambaarsanayn xorriyadda tusaale ahaan liberal democracy waa dimuqraadiyadda ilaalinaysa xuquuqul insaanka iyo tusaale ahaan sida in dadka minority-ga laga tirada badan yahay ee lagu sheegay in laga tirada badan yahay la dhowro xuquuqdooda waa tusaale ka mid ah illiberal democracy-gu waxa uu ilaaliyaa dadku waa tartamayaan lama ilaalinayo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay oo yacni lama oranayo bulshada hala soo gaarsiiyo iyo kan hala sameeyo laakiin illiberal democracy-gu wuxuu aaminsan yahay cid waliba meesheeda ha joogto laakiin dalka waa loo siman yahay marka wuxuu rabay Mareykanku inuu fidiyo waxa loo yaqaano liberal democracy qodobka labaad wuxuu isticmaalayay theory-ga la yiraahdo democratic peace theory oo waxa uu aaminsan yahay adduunyada inuu dimuqraadiyad ka hirgeliyo ayuu rabaa wuxuu aaminsan yahay marka dimuqraadiyad haddii adduunka laga hirgeliyo in wadamada caalamka oo dhan ee dimuqraadiyad markay noqdaan adduunyadu nabadgelyo noqonayso marka aan dimuqraasiga lama dagaalamo democracy cannot fight against democracy ayuu aaminsan yahay waddanka dimuqraadiga lama dagaalamo waddanka dimuqraadiga marka adduunyadu kula dagaalami mayso qodobka saddexaad wuxuu aaminsanaa markaa inay adduunyadu noqonayso safe mid nabadgelyo ah in adduunka oo dhan noqonayo ayuu aaminsanaa marka wuxuu rabay saddexda qodobba inuu ku filiyo in uu ka sameeyo adduunyada oo uu ku sameeyo waxa loo yaqaan markaa in the America's image sawirka Mareykanka yacni sida Mareykanku uu eegyahay inuu adduunyada kale uu ka dhigo ayuu doonayay waddanka Mareykanku waxaana uu arkaa shaqo muhiim ah marka Ukraine waxa la gashay fidinta dimuqraadiyadda iyo liberalismka aqoonyahanka siyaasadda caalamka ee aaminsan fikirkan uu Mareykanku fidinayana waxaa number 1 ka ah ninka loo yaqaano Francis Fukuyama oo qoray buugga la yiraahdo The End of History dhamaadkii taariikhda oo filayay mar haddii laga adkaaday midowgii Soviet la baabiyay oo communismkii ama shuuciyaddii laga adkaaday oo adduunyadu markaa dimuqraadiyaddii liberalismkii uu soo haray in adduunyadu markaa ay noqon doonto adduunyo nabadgelyo ah oo wada dimuqraadiya oo wada liberaal ah arrinkaana Francis Fukuyama waa uu ku fashilmay taariikhdeena dib ayay hadda u bilaabantay waa kan quwadihii reer barigu waa kuwan soo noqonaya oo kumu darsan talada Francis Fukuyama haddii communismkii laga adkaaday waxa laga in yacni authoritarianka ama wadamada aan dimuqraadiga ahayn ma uu filaynin in ay waxa weeyaan iyaguna ay muxuu ahay awood yeelan doonaan sida muxuu ahaa China oo kale iyadoo waddanka Ruushka oo kale
haddaba intaynaan gaadhin qodobka labaad ama sababta labaad ee waddanka Mareykanku u yaraystay uu khatarta intaa leeg ugu bareeray inuu dagaal la galo waddanka Ruushka ama dagaalka saddexaad ee adduunkuba uu suuragal noqdo ugu bareerayo qodobka labaad intaynaan u gelin waxaynu eegaynaa Francis Fukuyama aqoonyahanka loo yaqaano ee qoray buugga la yiraahdo The End of History waxyaabihii ay qorteen ma ku guuleysteen ama Mareykanku ma ku guuleystay fidinta dimuqraadiyadda liberaalka ah ama liberal democracy-ga Mareykanku ma ku guuleystay no kuma guuleysanin waxa tusaale ku ah Afghanistan buu qabsaday miyuu ku guuleystay democracy buu ayuu la yara galay laakiin dadka liberal miyuu ka dhigay kama dhigin dadku waxa weeyaan waxay ahaayeen nationalism dad yani liberaalka ka horjeeda liberaalku nationalismku liberaalku ka horjeeda yani cidina xor ma aha dadka muslimka ah xor ma xorriyad ma rabaan xorba ma aha dadka muslimka ah waa adoomo u yihiin Allah bay adoomo u yihiin marka horeba xorna ma aha wax kasta ma sameyn karaan waxba ka mamnuuca khamriga ka mamnuuca sinada ka mamnuuca ribada ka mamnuuca marka yani cid uu ka dhigay liberal ma jirto democracy-na de wadiga arkayaba dimuqraadiyadna kama dhigin Afghanistan markiiba waxa ku soo noqday oo hayn kari waayay waxa ku soo noqday qoladii waddanka iska lahayd ee Daalibaanka la oran jiray Iraq miyuu ka dhigay liberal kama dhigin Iraq dimuqraasi yar buu ka dhigay laakiin de dibata ka jirta waxa weeyaan waddanku dib uu u noqday mana waxa weeyaan korna uma socdo okay miyuu ka dhigay waddanka Egypt Masar maya dimuqraadiyaddii uu fashiliyayba kama dhigin okay marka Mareykanku dimuqraasigi liberal democracy-gi muu fidin kuma guuleysanin oo ku khasaaray markaad eegto fikirka ah democratic peace theory la yiraahdo Mareykanku uu filayay haddii adduunyada uu ka dhigo wada dimuqraadi inaan dimuqraadiga la dagaalamin marumba maya ama dimuqraadiyiintu uu aaminsan yahay dagaal ma qaadaan oo adduunyada dagaal kama ridaan taasina waa been bay noqotay waayo waddanka Mareykanku waa waddanka ugu dimuqraadisan waana liberal democracy haddana waa waddanka ugu dagaalka badan la caalamka tiirigaasina wuxuu noqday mid aan xaqiiqo ku dhisnayn ayuu noqday oo Mareykanku adiga arkay inta dagaal ee uu galay kasoo bilow Vietnam kasoo bilow waxaad ku xujisiisaa North Korea iyo South Korea dagaalkii dhex maray kusoo xujisii Afghanistan Iraq Syria yani saddexdii sane kastaba waddanka Mareykanku isagoo dimuqraadiyad dagaal buu qaadaa marka fikirkii ahaa adduunyadu hadday dimuqraadi noqoto nabadgelyo ayay noqonaysaa meesha uu ka baxay waxa kale oo uu aaminsan yahay Mareykanku sababta uu fidinayo liberal democracy-ga wuxuu aaminsan yahay dadku inay jecel yihiin dimuqraadiyadda laakiin dadku ma wada jecel dimuqraadiyadda ma jecla waddanka China oo kale dimuqraadiga uu neceb yahay shacabkiisu xataa dimuqraadiyadda ma jecla dadka qaar marka qaar waxay jecel yihiinba authoritarian-kay jecel yihiinba capitalistkay jecel yihiin ka jecel dimuqraadiyadda ka jecel yihiin China ka soo qad arrinka kale ah ay aaminsanaayeen wadamada reer galbeedku ah dimuqraadigu uu ka dhaqaale fiican yahay uu ka koritaan fiican yahay uu ka awood badan yahay wadamada dictatorka ah marunba maya run maaha China ma dimuqraasi ba dhammaan wadamada Yurub ee dimuqraadiyadda ayuu ka sara maray wadankii Mareykanka ee ugu sareeyay ayuu rabaa inuu gaaro oo uu dhaafo taasna waa la beeneeyay taariikhdu way beenaysay oo tusaale waxa ku ah bal Hindiya iyo China waa jaar Hindiya iyo China kaba awood badan China ka awood badan xagga militariga xagga lacagta iyo maaliyadda yaa ka awood badan China ka awood badan marka taasina been ayay noqotay qodob kale oo isna muhiim oo ay leeyihiin dimuqraadiyaddu faa'iido ayay leedahay dictatorship-kuna faa'iido ma laha ay leeyihiin kaasina marunba maya run maaha waa uu beenoobay isaguna waxa taariikhduna tustay in wadamada dimuqraadigi ay ka khatar badan yihiin wadamada dictatorka ah mana rumaysan kartid laakiin sidan waxa igu raacsan oo ku raacsanahay Professor John Mearsheimer ninka la yiraahdo waa philosopher waa aqoonyahan ku takhasusay siyaasadda political science waxa loo yaqaan IR-ka
haddaad u baahan tahay akhriso transcriptka laga qoray dooda dhex martay qarniga 21aad realismka iyo liberalismka ee ka qayb galeen Francis Fukuyama iyo John Mearsheimer. marka laga reebo in ay beenowday in dimuqraadigu uu ka fiican yahay authoritarianka aynu tusaale u soo qaadanay wadanka China iyo Hindiya ama wadanka China iyo wadamada Yurub aan u soo qaadanay. taa waxaa dheer in wadamada authoritarianka ama nidaamka siyaasiga ee authoritarianka loo yaqaano ee koox kaliya ay taliso ee uu ka faa'iido badan yahay wadamada dimuqraasiga waxa cadayn ku ah hal shay. wadanku hadduu qas galo dimuqraadiyadu ma dhisto, waxa dhisa authoritarianka dhisa. yacni dimuqraadiyadu daaqaday ka baxdaa ma shaqaynayso. tusaale ahaan waxaa loo soo qaadanayaa waxa loo yaqaano state emergency xaalad degdega ah soo qaado waxa loo yaqaano dagaalkii Ethiopia markii uu ka dhacay isbedelku ka dhacay ee Abiy Ahmed uu ku guuleystay wadanku isku bedelay dimuqraadiyadda dhabka ah waxa ka dhacay qalalaasa ka dhacay maadaama wadanku uu kala guur ku jiro. qalalaasihii markuu ka dhacay wadanka waxa lagu soo rogay waxa loo yaqaano state of emergency baa lagu soo rogay xaalad degdega ama martial law waxa loo yaqaano taasoo macnaheedu yahay dimuqraadiyadda in la laalay muddo 6 bilood ah la laalay oo aanay shaqaynin walaa maxkamad walaa baarlamaan walaa cidna walaa boolis military ku shaqaynayo. arrinka aqoonyahanka wax ka qoray waxa kamid ah ninka loo yaqaano Clinton oo ku qoray buugiisa la yiraahdo Constitutional Dictatorship waan akhriyi karnaa insha Allah. marka waa inaan ogaanaa had iyo goor in dimuqraadigu sida la moodayo iyo sida la sheegayo aanu ahayn, laakiin ay dadka qaar ka iibinayaan dhaqankooga iyo nidaamkooga ay rabaan inay ka iibiyaan kaagana ay baabiyaan. hadduu islaamik yahay, hadduu diinta islaamka tahay, hadday diimaha kale tahay, hadday dhaqanka tahay inay baabiyaan ay rabaan, iyo hadday tahay nidaamyada kale ee siyaasadda caalamka lagu dhaqo. qodobka labaad ee Mareykanka uu ugu bareeray khatarta intaa leeg waxa weeyaan waxa uu yaraystay arrinka Ukraine ka dhaci kara ayuu yaraystay wadanka Mareykanku 3 arrimood dartoodna uu yaraystay. waa koow, meesha dagaalku ka socda maaha wadankiisii, cidda dhimanaysa maaha Mareykan, cidda dhimanaysa waxa weeyaan waa Ukrainian weeyaan. waa haddii loo baahdo si kale loo macneeyo dad Ruusha iyo dad Ruushka ay walaaliyihiin weeyaan waxa dhimanaya. daaraha dumaya, dawladda la garaacaya, waxaan oo dhan ba isaga maaha wadankiisa. qodobka labaad wuxuu rabaa inuu guuleysto ayuu rabaa, wuxuu u dagaalamayaa guul ayuu u dagaalamayaa. oo halkan waxa laga baqayaa yacni wadanka Mareykanka haddii laga guuleysto taa macnaheedu waxa weeye waxa guuleystay dictatorshipka ka guuleystay dimuqraadiyadda. saa daraadeed meeshani waxay xaqiijin doontaa cidda adduunyada dib u maamuli doonta. haddii Mareykanku ku guuleysto weli waxa sii jiri doona maamulkiisa liberal democracy-ga. haddii laga guuleysto shucuubta caalamka ku nool fikradahooga isbedeli doona, deetana waxa loo arki doonaa inuu jabay. marka wuxuu rabaa inuu guul xaqiijiyo si adduunyada uu sii maamulo. qodobka saddexaad waxa weeye Ukraine ma laha agent ma laha no agent of Ukraine baa la yiraahdaa. Ukraine agent ma laha, wakiil ma dawladdu wakiilka maaha Ukraine. dawladda Ukraine ee Zelensky uu hogaaminayo Ukraine maaha ma matasho, yani way matashaa laakiin agent danteeda kama shaqaynayso. waxa ku shaqaysanaya wadamada reer galbeedka, waxay ka dhigteen gaashaan ay iskaga dhigaan xabadda ku soo ridi lahaa wadanka Ruushku, waxaanay ka dhigteen hubkay ku ridi lahaayeen wadanka Ruushka ayay ka dhigteen. meesha waxa ka socda markaa proxy war ba ka socda. doodeena maanta waxaan kusoo gabagabeynaynaa markaa Mareykanku waxa uu ugu bareeray 2 arrimood ayuu ugu bareeray khatarta intaa leeg. kow, wuxuu rabaa inuu shaqo muhiim u arka ayuu wadaa, oo wuxuu rabaa inuu fidiyo liberal democracy-ga. waxa kale uu aaminsan yahay hadduu adduunyada dimuqraasi ka wada dhigo inaan dagaal ka dhacaynin. 3, wuxuu aaminsan yahay haddii ay sidaa wada noqoto uu rabo in adduunyadu nabadgelyo ay noqonayso. qodobka labaadna Mareykanku waxa uu yaraystay arrinkan, wuxuuna u yaraystay waxa weeyaan wadanku dagaalku ka socda wadankiisii maaha, guulna wuu rabaa. dawladda wadanka Ukraine maaha dawlad dalkeeda matalaysa maaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.